بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد صاحب يال كسود وهذا عشر كياني تعانها ها أنا قال لنا مادة بزنس كا فصل كذا فون فور كا شابتر كذا اللبات عشر كي السدحات عشر كي كوري وعن كسو قاضني money and its evolution lacagaha iyo marxaladihii kala duwanaa oo kala gedisnaa oo ay soo mareen ayaan soo qaadan waxaan sidaas oo kale soo qaadanay astaanta ee astaamaha ay leedahay lacagta wanaagsan ama suuban ee dadkeedu ay ka faa'iideysan karaan sidaas oo kale waxaan soo qaadanay shaqooyinka ee qabato lacagta shaqooyinka ay qabato functions of money shaqooyinka kala duwan ee qabato lacagta waxaa sidaas oo kale soo qaadanay lacag maxaa lagu qeexi karaa oo faahfaahsan ayaa soo qaadan okay intaas markaan sheegno kadib waxaan rabaa inaan meeshaan baraarujiyo jabtarkeena waa jabtar aad iyo aad muhiim u ah maca daalika haddana si kooban ayaan anigu sharxoya haddaa sharaxaad dheeri u baahan tahay fadlan wax sii raadi haddii waxyaaba qaar ku adkaa igu soo celi waa arday dugsi sare unbaa loogu talagalay in ay ka faa'iideystaan aan u maano marka bankin iyo axwaashiisa aan u maano banki inta aanan usii gudagalin macalin bal adigaba baws dhaho videoga joojiso maxaad ka fahansantahay banki maxaad ka fahansantahay okay aan ka soo laabano marka banki inta aanan qeexin inta aanan sharaxaad aanan ka bixin balan horta qeexitaankeedaan aan dul marno marka qeexitaanadeeda aan dul marno ayaan faahfaahin saari doonaa banki waa is a financial institution waa hay-ad maaliyadeed financial waa maaliyadeed hay-ad maaliyadeed waxaa loola jeedaa waa hay-ad maamusha hay-ad macnaha shirkad oo kaleeto waaye wax institution waxaa la lahaa shay kasta ee dhisan ee leh nidaam iyo xeer uu ku shaqeeyo leh kaasigoo hadhowdii meel loo tixraac yeelna financial institution waa maxay waa hay-ad maaliyadeed ku shaqeyso lacagaha waa hay-ad ku shaqeysa lacagaha dadka taasoo acceptis aqbasha money lacagta depositis in la dhigto in ay lacago dhigtaan from the public dadweynuhu for safe keeping in ay u ilaaliso u dhigtaan ka aqbasha and iyo lending out in ay deemiso money lacagta to the public dadweynaha public meesha dadweynaha loola jeedaa in the form of loan in ay deen ahaan ay ku siiso okay waa midda koowaad banki waxaan dhahnay waa hay-ad maaliyadeed taasoo dadku ka aqbasha inay lacaga dhigtaan dadka waxay ka aqbalay inay lacagahooda ay dhigtaan ku keedsadaan sidaas oo kaleeto waxay dadkii si ay ugu ilaaliso ugu xafido sidaas oo kaleeto waxyaabaha dadkiina amaahisa siisa lacago deyma ah haddii ganacsiga ku furo lahaayeen haddii rabto baabuur u iibiso haddii badeeco u iibinayso haddii ay u iibinayso wixii wax dadkan u baahan yahay u iibinayso mar kaleeto bangiyadu are institutions waa hay-ado that are kuwaasoo set up loo abuuro ama loo sameeyo to carry out inay qabtaan financial transactions tacaamulka dhanka lacagaha la xiriiro in ay dadkii kula macaamilaan tacaamulka waxyaabaha dadka la xiriir dhanka maaliyadda la xiriiro inay dadkii ka caawiyaan oo ugu shaqeeyaan dadkii meel lacaga dhigtaan haddii u baahdaan inuu bankigu qabto haddii dadku lacaga meel ka deensadaan u baahdaan inay bankiga deensadaan dadka haddii rabaan wax alaab u iibiyo inuu bankigu u iibiyo haddii macnaha waxyaabihii maaliyadda la xiriiro in ay u sameeyaan bangiyadu okay mar kaleeta aan kusii darno marka banki maxaa la lahaa marka aan qaybteen usoo laabano sharxaadeen banki macalin waxaa la lahaa waa hay-ad maaliyadeed laba shay haddii shaygan laga helo haddii laba shay laga helo waa banki kow ama sidii banki oo kaleeto u dhaqmi karaa waa mid
midda koowaad waxay tahay kow waa in uu dadka ka qabtaa lacago dadku waa inay lacagtooda dhiga karaan qof kasta ayadoo loo kala saarin kana aan loo kala saarin qof kasta waa inuu lacagtiisa uu dhigan karaa weliba si aamina uu dhigan karaa qodobka labaad waxay tahay bangigu waa in uu dadka lacaga siiyaa bangigu lacag caadi ma siinayo bangiyadu waa kaliya bangiyo islaami iyo waxaa kala jiro bangiyo oo conventional gadaal bangiyo gaala jiro oo conventional gadaal ka arki doona laakiin bangigu hadduu islaamig yahay waxaa jira qaabo uu ku shaqeeyo dadka lacag cadaana ma siinayo dadku waxay rabaan u iibinaa maxaa rabtaa baabuurku iibina maxaa rabtaa dharkii u iibina maxaa rabtaa macnaha wixii asoo faa'iido yar saarana si uu shaqeeyo waa arki doona bangi waxaa la haddii labadaas shay laga helo midda koowaad oo ah accept money deposit dadka inay lacaga dhigtaan ayuu ogol yahay qodobka labaadna waxay tahay lending out money lacag ayuu dadna ayuu lacagii amaahinaya labadaas shay haddii laga helo bangigu waa bangi shaygaas waa bangi okay waa bangi okay bangiyadu sida ganacsiyada kaleeto ujeedada ugu weyn ee loo sameeyo waxay tahay in faa'iido laga sameeyo ujeedada ugu weyn oo loo sameeyna waxay tahay in oo faa'iido laga sameeyo bangigu marka wuxuu u dhaxeeyaa laba shay ayuu u dhaxeeyaa dadkii lacagta dhiganayay oo dhinac taagan iyo dad uu asigu lacago hadhoodii amaahayo uu rabo inuu wax u iibiyo uu rabo bangi maadaama uu asigu uu faa'iido raadis yahay qaabkuu faa'iido ku sameeyo arki doono intaas waa isla fahna soo ma okay ereyga bank waa erey aad iyo aad waqti dheer muddo dheer ayuu soo jiray bangi waxaa la lahaa meesha ereyga horta asal ahaan wuxuu ka yimid erey talyaani ayuu ka yimid banco aa la dhihi jiray banco 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 ayaa la dhihi jiray okay markii sidaas bank waxaa loola jeeda marka talyaaniga macnaheedu waxay noqonaya miiska hoostiisa ayaa loola jeedaa miiska hoostiisa ayaa loola jeedaa miiska hoostiisa ayaa loola jeedaa okay aanu maana marka maadaama markii horeeto wixii lacaga la qabto miiska hoostiisa waxyaabaha la gelinaa si imbirib meeshaasi sheekeedu kasoo baxay historigeedu waa dheer yahay taariikhda haddaan waan galeen dhahno waa sii dheeraane bal aan soo gaabiyo cashirkan waqti kooban uu soconayo bangigu shaqada ugu weyn uu qabto waxay tahay intermediary waa dhexdhexaadiye shaqada ugu weyn oo bangigu qabto waa maxay waa dhexdhexaadiye bangiyadu are intermediary waxay dhexdhexaadiye u yihiin between labada savers dadka lacagta dhiganaya bangiga saving waa keedsiga dadka lacagaha ku keedsanaya bangiga keedsadayaasha anda iyo borrowers dadka amaahda qaato dadka amaahaha qaadanayo ayay u dhaxeeyaan bangigu waa maxaa sigdhan waa dhexdhexaadiye wuxuu u dhaxeeyaa bangigu asiga lacag uu leeyahay kuma shaqeeyo lacagta dadka ayuu ku shaqeeyaa lacagta dadku leeyahay dad oo lacagahoodii meel geeyaan waaysan amaan u rabaan ayaa bangi markuukaas bangigu u qabana kuwii kaleeto lacag ayagan meel ka raadsadaan waa kuwii iyo kuwaan isugu celcelina meesha dhexdooduna faa'iido ka sameeyna bangiyadu are intermediary waa dhexdhexaadiyaha between u dhaxeeya savers kuwa wax keedsada and borrowers iyo kuwa deynta qaadanaya u dhaxeeya bangiyadu like other business enterprises sida ganacsiyada kale shirkadaha ganacsi oo kaleeto enterprise waa shirkado business waa ganacsi shirkadaha ganacsi oo kaleeto operates wuxuu ku shaqeeyaa with the main objective ujeedadiisu ugu weyn iyadoo ay tahay of making profit inuu faa'iido sameeyo ujeedada ugu weyn oo ganacsiga businesska laga leeyahay faa'iido in la sameeyo sooma sidaas oo kale bangiguna ganacsiyada ayuu ka mid yahay waa faa'iido raadis okay the operations shaqooyinka of banks ee bangiyada ay qabtaan are governed waxaa maamula by guidelines xeerarka ama sharciyada that are set taasoo ay dejiyeen by the central banks bangiyada dhexe bangiyada dhexe ay dejiyeen okay bangiyada dhexe ay dejiyeen maxaa loola jeedaa bangiyo kala duwan ayaa wadamada ka jiro ilaa macallin waxaa jirto 8 nooc ayaa bangiyada loo qeybiya waxaa jiro agricultural banks bangiyada loogu talagalay beeraha waxaa jiro
saving banks bangiyo keliya loogu talagalay in lacagaha la dhigto oo aan wax kalaba sameyneyn saving bes ay sameeyaan waxaa jiro insurance banks bangiyo caymis bis bixiya ayaa jiro waxaa jiro commercial banks bangiyo ganacsiya ayaa jiro hadda badana anaga waxa aan naqaano waa hadda Salaam bangi oo kaleeto Dahabshiil bangi oo kaleeto Premier bangi oo kaleeto IBS bangi oo kaleeto bangiyada gudaha ku yaalo waa commercial waa bangiyo ganacsi wa marka ma jiro bangi beeran jirin bangi waxaa jirin wax loo keedsado kuwa naftirkeed way aqbalayaan sax laakiin keed bis uma gaara the operation marka dhammaan kuwa shaqooyinka ay qabtaan yaa mas'uuliyadooda qaadaya dhammaantooda mas'uuliyadooda waxa qaadaya central bankiga ayaa maamulayo central bankiga ayaa maamula xeerar ayuu soo dejinaa xeerarkaas uu soo dejiyo ayay ku dhaqmayaan okay intaas markay timaado waxa la rabaa oo meesha imaanaysa sidaas oo kaleeto bangiyadu see u shaqeeyaan how banks work sida ay bangiyadu u shaqeeyaan aan shaxda aanu maano marka how banks work sidee bangiyadu u shaqeeyaan macal bangiisa hadda soo sheegin waa dhexdhexaadiye bangi waa maxay waa intermediary waa dhexdhexaadiye dhexdaas uu taagan labada dhinac waxaa ka taagan savers oo kuwii lacagaha keedsanaha iyo deposit borrowers oo kuwii lacagaha deensanay labadaas ayaa meesha u dhaxeeya therefore marka bangigu wuxuu u dhaxeeyaa laba shay savers iyo borrowers dadkan waa dadka lacagahaas lacag ka soo qaad anoo kaleeto ama adigoo kaleeto ka soo qaad waa shaqeysaa shirkada u shaqeysaa waxaa ka qaadataa $100 $100 waxaa kugu filan cidaadii waxaa dhan hadii la isku celiyo $50 ayaa kugu filan oo in aad biilato wixii dhan $50 kale ma ku soo hartay $50 kale gacanta ma ku hayna waa may waa qaadaysaa bangiga geene deposit maxaa ku sameeyne deposit inta ka soo baxaysa deposit bangiga keensana bangi hadda muxuu hayaa konton adna konton asiga ka soo qaad saas 100 ku haya asiga 100 ka meesh muusaga yaala waa may 100 ka meesh ma yaalaaye waxaa jira dad lacagaha u baahan ayagana ganacsi ah waxay rabaan ganacsigooda in lacag baawur rabaan in loo iibi lacag waxay dhar rabaan in loo iibi ganacsi bangigaasna muxuu sameeynaa marka lacagtii $100 ma wada iibinaaye $50 ayuu wuxuu deeminaa ku baaro wariska ayuu deeminaya هذا العقد أنت كوتالا بنجي كوتالا بنجي وكو ماله وكو هاي مركا أوصل بها توكسينا سيدا سو كلا سلا العقد هذه محسمة ورجي كو دين ربوسي دين تو كوريجي أوكي دين تمركو ساس وكوريجي هذا بنجي العقد كربتها أصلا العقد وحسمة وهي الغف كانوا باور مرتها باور كان ما $100 جوا أفرد $10 جوا كنتم باور كان مجوجو ها باور كوكو يبنا $10 يكان يسوع أوكي bangi meesh meeqa uu saaran 5 ugu jirto Soomaa qofkan lacagtii marka muddo markuu kiskis uu soo celinaa bangi uu ku soo celinaa 10 uu soo dhiibaayo marka dambe iska dhameystiray adna xiligaad rabto ayaa lacagtaada la bixaysa withdraw wala sameeyna bangi markuu muxuu faa'iido ka sameeyay labadan qof dhexdooda lacag asiga lacagtiisa ka muusan bangi soo shaqeeya marka macal waa qaabkaas bangi waa dhexdhexaadiya u dhaxeeyo kuwa wax keedsada iyo kuwa deynta qaadana kuwa wax keedsana lacagtii bangi keedsana bangi uu qabana sida lacagtii wuxuu deeminaa dad kale ayuu deeminaa isagoo faa'iido saarana faa'iidada dadka hadhow waa soo celcelinaa waa soo kaskasa faa'iidada lacagta ay soo celcelinaa hadhow qofka markuu saverka lacagta keedsadana markuu bangiga yimaado waa la siinaa wixiisa kaskasa wixiis waa la siinaa okay central bank ma waa marka central banki waa bangiga bangiyada waa bangiga dawladda waa bangiga ay dawladdu isticmaasho central bank waxa la bangiga dhexe oo maqalsan bangiga dhexe wadan walba oo dunida ku yaalan wuxuu leeyahay bangiga dhexe shaqadiisu ugu weyn waxay tahay waa hay'adda maamusha dhammaan lacagaha wadanka Soomaaliya oo wadan madax banaan wuxuu leeyahay central bank bangiga dhexe leeyahay bangigaas dhexe dhammaan bangiyada wadanka ku yaal wixii bangi wadanka gudihiisa laga furo iyo wixii xawaalad gudaha wadanka laga furo iyo wixii shirkado oo lacag ku shaqeeyo EVC oo kaleeto amal oo kale zaadi waxyaabaha dhan oo lacag ku shaqeeyo wixii lacag ku shaqeeyo asiga hoos tagay xaggaas laga maamula central banki waa bangiga dhexe waa hay'adda ugu sareyso dhanka maaliyadda ee wadanka uu leeyahay maxay sameeysaa marka sharciyada bangiyadu ku shaqeyn lahaayeen ayada ayaa diyaarinayso qaabka u shaqeyn lahaayeen ayada ayaa diyaarinayso okay waxaa la rabaa marka wixii sameeyso wixii sharci soo sameeyso in loo hogaansamo oo la qaato ayaa la rabaa
wadan walbana caqiido iyo aaminaa gaar u leh anaga maadaama wadan muslim aan nahay waxyaabo shareecada islaamka ah la xiriiro fiqiga ayadoo bes looga dhigayo ayay sameynayaan central bank waa hay-adda bangiga dhexe as the highest institution waxa ay tahay hay-adda ugu sareyso highest institution hay-adda ugu sareyso in a country's banking system hanaanka bangiyadeed ee wadan uu leeyahay wadanka bangiyada ku yaalo dhan yaa u weyn central bank central bank waxaa la bank of banks alla bangiga bangiyada ayaa la which regulate taasoo maamusha and control ilaalisa the economy's financial activity the economy dhaqaalaha financial activities howlaha maaliyadeed ee dhaqaalaha wixii lacag wadanka soo galaayo wixii lacag ka baxaayo dadka dhexdooda lacag isticmaalaan waxaas badnayd mas-uulka ahay in la iska fiiriyo to ensure si u xaqiijiso stability xasiloonida lacagta and the prosperity iyo barwaaqada sida loo gaari lahaa dhanka maaliyadda central bank waa maxay marka waa the highest institution hay-adda ugu sareyso in a country's banking system hanaanka bangi ee wadan uu leeyahay which regulate taasoo maamusha macnaha maamusha and control ilaalisa the economy dhaqaalaha economy's financial activities howlaha maaliyadeed ee dhaqaalaha ee wadanka to ensure si u xaqiijiso stability xasilooni in lagu helo and prosperity barwaaqan laga gaaro this involves marka tan waxay shaqo ku leedahay regulating inay regulate gareyso regulation waa maxay sharciyo inay sharci u dejiso and controlling ayna ilaaliso the financial sector waaxda maaliyadeed ama qaybta maaliyadda of the economy ee dhaqaalaha qaybtiisa lacagihiisa inay ka warqabto and implementing ayna dhaqan geliso the government's monetary policy waa siyaasad monitoring waa lacag siyaasadda lacagta ee dowladdu ay leedahay dowlad walba waxay samaysataa siyaasad u gaar tusaale haddii qofka muwaadinka waxaa laga qaadaya lacag hadduu shaqaysto waxaa laga qaadaya canshuur intaas bangiyada haddii faa'iidaan lacaga laga qaadaya haddii qof wixiiba lacag wadanka la xiriira implementation in ay dardar geliso ama ay dhaqan geliso the government's monetary policy siyaasadda maaliyadeed ee dowladdu ay leedahay to promote si uu horumariso economic growth kobaca dhaqaalaha and the development iyo horumarka la sameynayo si ay u dardar geliso central bank wasla fahansama waa hay-adda ugu sareysa dhanka maaliyadda ee wadanka shaqooyinkeeda marka aan aragno functions shaqooyinka ay qabato of central bankiga shaqooyinka uu qabto the various functions macal shantan shaqo waxaa qabto central bank askale functions shaqooyinka of central bank shaqooyinka uu qabto the various functions shaqooyin kala duwan of central banks include waxaa ka mid ah the government's bank horta koo waa maxay waa bankiga dowladda lacagteeda dhan intaa lagu keydiyaa central bankiga dowladda haddii lacag u baahantay intee ka isticmaale central bankiga dowladda haddii lacag loo baahdo intee loo dhigaa central banki waa bankiga dowladda gacanta ku haysto dowladdan wadankan ayadaa maamusho soo ma the bankis bangiyada bangigooda waaye bangiyada bangigooda waaye maxaa loola jeeda marka wixii banki wadan ku yaalo ha ahaado mid beeraha ha ahaado mid xoolaha ha ahaado mid wax lagu keedsado ha ahaado mid ganacsi dhammaantood waa maxay bangiyada kulli asay hoos tagaan the lender waa amaahiyaha of last resources ee deynta ugu dambeyso haddii lacala tusaale ahaan wadanka uu deen u baahdo ama deynta meesha ugu dambeysa laga doonayo waa central bank the lender waa amaahayaha of last resourciga ama amaahda meesha ugu dambeysa laga doonayo responsibility waxay mas-uul ka tahay for managing inay maamusho the national debt deymaha wadanka lagu leeyahay mas-uulka inay maamusho central bank responsible waxay mas-uul ka tahay for carry out inay fuliso government's monetary policy siyaasadaha maaliyadeed ee dowladdu ay leedahay in ay maamusho ayay mas-uul ka tahay central bank shantan shaqo ayay qabataa marka commercial bank aanu maana marka commercial bank waa nooca labaad waa nooc ka mid ah bangiyada hore soo sheegay commercial bank waa bangiyada ganacsiga lagu sameeyo hadda kuweenan amal salaam dahabshiil waxa dhan waa commercial banks bangiyada commercial ganacsiga are referred to sidaas oo kale waxaa loo yaqaanaa joint stock waa joint stock commercial bank isku mid waaye joint stock ama commercial bank isku mid waa this is because tani maxaa yeelay the banks bangiyada are owned waxaa iska leh by shareholders
dad shareholders ayaa iskale. Shareholders hore usoo qaadan form 2 markaa haynay. Shareholders waxaa loo yaqaanaa dadka ganacsiga iska leh lacag qaabka wax isugu darsadeen inta qayb ka kooban. Shareholders dadka milkiilayaal ayaa iska leh. An aran waxaana fuliyo ama qabto shaqadooda by board of directors. agaasimayaal ayaa qabtaan, like sida any other joint stock company, sidii shirkadaha kaleeto caadiga sole company, sole proprietorship, partnership, corporation, kuwa soo qaadanayno kale sidii loo maamulay oo kaleeto ayaa ayagana loo maamulayaa. Okay, functions marka shaqooyinka of center commercial banks ka shaqooyinka ay qabtaan aanu maano kana macala sigana 5 shaqo kale ayuu qabtaa. Commercial banks, the various functions shaqooyinka kala duwan of commercial bankiyada waxaa ka include waxaa kamid waxay isugu jiraan accepted deposits. Horta maxay waxay aqbalaan depositka, dadka ayay lacagahooda ka qaadaan accepted deposit. labo profile waxay siiyaan loan facilities ama deymo ayay dadka siiyaan. Loan ama waa facilities no fududeyn, lacago deymaha ayay siiyaan dadkii. saddex affect waxay saameysaa foreign exchange payment. waxay bixiyaan sarifka lacagaha qalaad. Affect waxay sameeyaan ama bixiyaan foreign exchange payment, sarifka lacagaha qalaad ayay bixiyaan. Provide waxay siiyaan safe keeping, meel lagu ilaaliyo for valuables, waxyaabaha qiimaha leh. lacag tusaale sabr loogooyinka oo kale, dahabkii oo kaleeto ayaa waxaa la sameynaa bangiga loo dhiibana uu ku keedina qasnad gaar oo bangigu wuxuu leeyahay uu ku keediyo waxyaabaha qiimaha leh. Provide wuxuu siiyaa safe keeping for valuables, waxyaabaha qiimaha leh ee loo keediyo. Provide wuxuu siiyaa financial information, warbixino la xiriira dhanka maaliyadda ayuu wuxuu siiyaa macaamiishiisa. Provide wuxuu siiyaa financial information, warbixino la xiriiro dhanka maaliyadda ayuu siiyaa macaamiishiisa. Okay, meeshaan aan maano marka comparison waxaa isbarbardhig ku sameynaynaa between Islamic banks, bangiyada islaamiga and conventional iyo bangiyada gaalada ayaa isbarbardhig ku bangiyada islaamiga iyo bangiyada gaalada maxay ku kala duwan yihiin ayaan ku sameynaynaa isbarbardhig. Okay, conventional banks it is functions shaqooyinkiisa are based waxaa base looga dhiga ama sal u ah on man made principles, shuruuc ay sameeyaan dadka bani aadamka ayaa macnaheeda ayaa sal u ah. lacala tusaale ahaan conventional bangiyada gaalada waxay isticmaalaan ribo iyo waxyaabahaas oo kaleeto ay isticmaalaan waana waxay bani aadan sameeyeen. laakiin halka dhinaca Islamic bank it is functions Islamic bank islaamiga it is functions shaqooyinkiisa are based kan wuxuu base u yahay on shareeca principles, macnaha sharciyada islaamka xeerarka shareecada islaamka ayaa base u ah. ribo waa xaaraan, qararka waa xaaraan, waxyaabo badan ayaa ka xaaraam oo aysan sameyn karin. Okay, qodobka labaad, the investor qofka lacagta la siinayo is assured waa loo damaanad qaadayaa. Predetermined waxaa loo damaanad qaadayaa predetermined rate of interest, rate ama xaddi go-an oo interest. lacag sal $100 dhigto $100 $5 aad ku leedahay $5 anaga ku imaan. Okay, the investor qofka maalgashanayo oo bangiga lacagta dhiganayo is assured waxaa loo damaanad qaadayaa a predetermined rate, tira go-an of interest oo riba go-an. lacag cad ayaa $100 ma dhigata waxaad ku leedahay $5 ku leedahay $5 hadhow noogu imaanaya. It promotes like Islamic bank waa ka duwan yahay. It promotes Islamic bankigu wuxuu hormariyaa risk sharing, awood in la qaybsado khatarta between u dhaxayso the investor maalgeliyaha and the fund user iyo qofka isticmaalayo lacagta oo ah entrepreneur hal abuura. lacag tusaalahan qofkii borrowerka ahaa qof bangi lacag uu rabaa bangigu wuxuu yiri anigu waxaan rabaa dukaan noocaas oo saas oo khatar aan rabaa inaan furto lacag haleysay. bangigu wuxuu leeyahay lacag lagu siimayo laakiin bedelkeed waxa lagu siin badeecada lagu iibina. riski marka meeshaas waa laga wadaaga. waxaad u baahan tahay soo sheeg waxaas lagu iibina. riski marka meeshaas waa lagu wada. khatartii ka imaan lahayd oo qofkan lacag kaliya in la siiyo lacagta hadhow adeeg ku taal ama ku qasaar ama ku faaid hadhowdii haddaad faadaa qasaartan waa kaa rabaa, haddaa faa'iidana waa kaa rabaa. meesha la dhihi waxaa leeyahay it promotes waxaa la dhiirigelinayaa risk sharing
in la qaybsado khatartii between ka dhalan labada u dhaxayso the investor midka wax maalgelinayo and fund user iyo qofka lacagta isticmaalayo entrepreneur waa hal abuura. It does conventional banks it does not deal lama macaamisho zaka ma dhiibto zaka lagama dhiibo. Conventional bangiyada gaala zaka ma dhiibaan may zaka ma dhiibaan canshuur wax ay dhiibaan laakiin bangiyada islaamka canshuur waa dhiibaan zakan waa u dheeritaa. It deals waxa ay dhiibaan zaka ayay dhiibaan zako ayay dhiibaan. Okay, conventional banks bangiyada gaalada anuman it is goal ujeedada ugu weyn is to maximize waa in ay sare u qaadaan profit faa'iidada ay helayaan without restriction ayagoo aan isxadeyneynin ayagoo aan isxadideynin ayagoo waxa kana ka xaraam kana ka xalaal wax ayagoo u fiirna meesha galaan ka keenayaan ayay ujeedada ugu weyn it is goal ujeedada ugu weyn waxay tahay is to maximize in ay sare u qaadaan profit faa'iidada without restriction ayagoo aan isxadideyn. halka Islamic banks it is goal ujeedada ugu weyn is to maximize waxay tahay in sare loo qaado profit faa'iidada compliance with ayadoo laakiin loo fiirinayo lagu dhaqmayo compliance ayadoo lagu dhaqmayo with shareecada labada waa laga sameeyay in faa'iido kor loo qaado laakiin kan ma xadidna. Conventional bankska ma xadidna. Islamic bankskuna waa xadid wuxuu ku xadidan yahay shareecada ma dhaafi karo wax shareecada ka baxsan hilib doonfaar ma gadi karo kan waa iska gadaa hilib qamar ma gadi karo Islamic bank kan waa gadaa qamar ma gali karo kan waa gala saas ku duway. It is fundamental function shaqadiisa asaasiga is to lend waa in uu amaahiyo money lacag dad waa inuu amaahiyo and get it back waa in uuna ka helaa with interest ayay u saarantahay. shaqadiisa ugu weyn conventional banks waa maxay in uu amaahiyo dadka lacag siiyo lacagtiina ay u soo celshaan by the time ay lacagtii ay ku ballameen ayada lacagtoogada maxaa u heliya interest $100 aan ku amaahina haye 5 bilood kadib waa in ay keentaa $110 waa in ay keentaa. That's it saas oo shaqadiis interest $10 maxaa marka waa interest. Kan like Islamic banks it is fundamental function shaqadiisa asaasiga is to promote waa in uu hormariyo partnership business ganacsi wax wadaaga ila risk haday timaado waa la wadaaga dhahna maahino hadhoodii lacag taalan qofkan badeeca u soo gada badeecada marka hor bangi waa inuu soo gada asiga uu la soo wareega marka uu la soo wareego kadib waa inuu mar kale ku sii wareejiyo macmiilka inta uu macmiil ku wareejin hadii ay qadar qabsato badeecadii macmiilka ka halawdo bangiga ka halawdo macmiilka ma halawdo bangiga ay ka laakiin markii macmiilku lagu wareejiyo hadii ay ka halawdo macmiilkii asiga yeelkiisa markaas. Okay, aanu maana markaa dana it works wuxuu ku shaqeeyaa narrower fields meelo kooban ayuu ka shaqeeyaa narrower fields meelo ama dhul area kooban ayuu ka shaqeeyaa area ko maxaa wuxuu yaqaanaa bis lacag saar uu yaqaana. Conventional banks maxay yaqaanaan lacag saar ayay yaqaanaan. halka Islamic banks maxay it works waxay ka shaqeeyaan wider fields dhul ballaaran shidaalku waa ku iibina dharku waa ku iibina baabuurku waa ku iibina ay dhagaxi dhismihii waa ku iibina wuxuu ku diyaarad waa ku iibina wax walba uu ku iibina. Islamic banks kana sida conventional banks Islamic banks maxay kala duwan yihiin intaas oo shay kala duwan yihiin ko shaqada kala duwan yihiin kan waa man-made base kan waa shariica principle kan investorka waxa loo damaan qaaday in lacag go'an la siinayo kana risk sharing waa qatarta la wadaagaya kan zaka ma dhiibo kana zaku dhiiba aye kan faa'iido in kor u qaado kan restriction kan ma xadidna kan waa xadidan kan shariicadu ku xadidan kan inuu lacag dada maahiyo kadib lacag dheer uu ka qaato kana in ganacsi wadaag ay dhistaan kan dhul kooban ayuu ka shaqeeyaa kana carro ballaaran ayuu ka shaqeeyaa. chapterkeeni labaad ee business kana intaas ayaan ku soo koobayaa. chapter 10 ugu dambeeya waa dheeray sababta u dheereen waxay tahay in aan chapterkan aan dhameeyo. haddii aad wax su'aalaad qabtid weydii fadlan wixii su'aal qabtana xagga hoose ee commentiga hoose igu reeb haddii aad 10 ka dhageysato haddii kale groupka caadiga soo weydii. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي